السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ardaydii la socotay waxa weeye meelba waxay noo socdeen inaan halkaas soo gaarsiinay inaan albaabka ku joojinay bay noo joogtay. albaabkaas cabirkiisu ciddii la socotay wuxuu ahaa mitir iyo 30. fardadaha furmaya waa mitir iyo 20, waa 60 dhinacaas iyo 60 dhinacaas. shatarkaasna 5 dhinacaas iyo 5 dhinacaas u qaatay. waynu sii wadaynaa marka ciddii aan la soconay hore mar labaad ku soo dhawaada sugaal IT Academy. waa akademiyad tiknoolajiyada la socota. waa akademiyada ku baran doontaan dhammaan wixii la xiriira tiknoolajiyada sida engineering-ka, accounting-ka, graphic design-ka iyo computer-ka asaasiyaadkiisa hoose. waa anigoo ah macallin Khadar. soo dhawaadaan ilaa mar kale halkii baan ka sii wadayaa marka ardaydii la socotay. marka aan blank iyo isleekaysiinayo muraayadayda waxaan ku dhufanayaa waxa weeye halkaas aan ku jiidayaa zoom extend baan leeyahay. marka aan ku dhufto blankaygu wakaa ay dhammaystiran bartaasay noo taagnayd. halkii baan ka sii wadaa waxaan sameynayaa qolkan hurdada suuligiisu waa inaan kala xidho ma kala xidhna. albaabadiina waan sameynayaa maanta ila soco. marka soo qaadanaya tab measurementigii midpointigii baan qaadanayaa. halkana midpointigii baan raadinayaa. maadaama suuli yahay 20ka xaggan aan ka qaadanaya 0.2 kadibna waan xidhayaa. line-kana xidh line-kana xidh waa gaar line-kana iga tagna isku dhex furo markaa gidaarkaas si hadhow markaad push pull ka samaynayso gidaaradu ugu wada kacaan dhammaan isku wada fur. haddaad ka dayso waxa way gidaar walba gooni buu doonay inaad kayso. marka waayo wakaa markaa blankeena isagoo dhammaystiran. albaabkii weynaa ganjeelkaan ka bilaabaya. halkaan albaabaan ku sameynaya ila soco. marka albaabkan ganjeelka waxaad samaynaysaa isaga midpointigii raadi marka hore. wakaasi xidh midpointiga markaad hesho dhinacyada intaad haysato iska hubi ama jeegaree. waxaad haysataa mitir iyo 40 dhinacana iyo mitir iyo 40 dhinacan kala ah. waay mitir iyo 40 keeni markaa waxaynu ku soo guuraynaa gidaarkan 0.1 baynu ku guuraynaa 0.1 okay 0.1 waka kan kalena 0.1 line-kaas waxba kama jiraan meesha iska saar isaga. waka halkaasaan line ku xidhanayaa. okay kan waxaan kasoo dhaqaaqayaa markaas 0.05 intii shatarka aan kuu sheegayay 0.05 kana intii in leeg baan kasoo baxayaa 0.05. okay isagana sidoo kale xidh. okay halkaas ilaa halkaa ku xidha. kana sidoo kale halkaas ilaa halkaas. waay fardada kuu furmaysaa markaa cabirkeeda waxa uu noqonayaa intaad haysatay intaas midpointiga ilaa halka waxaad haysataa mitir iyo 20 iyo 5 weliba. okay line-ka soo qaado sidaa u bax mitir dhibic 25 enter. sidan u bax 0.05 enter. soo noqo ilaa halka waa fardadii furmaysa wey. kanna sidoo kale kaa lagama raacaya xagga xiga dibadda xiga kan gudaha kusoo xiga ayaa mar walba la raacaya. waa mitir 25 sidan u bax 0.05 dib u soo noqo ilaa halka. waxaad soo qaadanaysaa waxa loo yaqaano arc haddii 2 point uu noqdo isaga qaloo casbaysan laakiin 3 ga fiican inuu arkayna tuubaanku ku fiican yahay. halkaa markaad ku dhufato soo dhaweyso kadibna labada pointeed isticmaalaysa dambe waa kaas iyo kaa kale. okay labada point aye kii kale haddana halkaa markaad kasoo bilowdo shiido ilaa iyo pointiga labaad pointiga saddexaad. intaas waa albaabkii. halkan midpointiga albaabka bartankiisa ayaad xidhaysaa
kadibna waxaad sameynaysaa kuwan ayaad iska tiraysaa gudaha xiga kaa dhexda xigana waad masaxaysaa dhammaan guideline-kiina waxaad leedahay iga tir waa kuwa good isagana albaabkan kale aan sameyno sidii oo kale waxaynu haysanay 0.9 waa gidaarka inoogu dhigo 0.05 kale ayaad oran kartaa haddii kale dhexda maxaad ku haysataa 8 centi good albaabku intaa kama yaraan kara marka waxaad sameynaysaa rectangle-ka inoo soo qaad intaa xidh kana intaa xidh albaabku markaa hal fardid buu ku noqonayaa kadib maxaad sameynaysaa line-kii soo qaado halkaa ku dhufo saa usoo 0.8 centi 0.05 kadibna halkaa bilowda ku xidh manay markaa albaabkii dhammaan guideline-adeena iska tir kii kalena sidoo kale waxaad sameynaysaa midpoint-gaad raadsan kartaa doonto dhinac baad u badan kartaa waxba dhib ma jirto saan oranaa 0.1 intaan kasoo duruubno saas oranaa 0.9 enter ka 0.9kii okay 10 centi baynu rabnaa marka inaan xaggan dibadda u baxno 0.05 si gudaha aynu u helno waxaa loo yaqaano 0.9kii aan raadinayna albaabkeena kan waa ka yaraan doonaa isagoon arki doonaa rectangle-ka intaad soo qaadato labada line isku xidh kana isku xidh okay labadaas markaa iska tir iyaga isaga suuriga albaabkiisu waa ka yaryahay 0. waxaad baxaysaa kaa dibaddaad ka qaadanaysaa weliba 0.8 baad baxaysaa 0.8kii 5 halkaasaad ka goysay 5 halkan kale ayaad ka goynaysaa 10 bay isku yihiin markaa 80kii marka aynu 10 ka jarno gudaha waa inuu 70 yimaadaa wakaa soo qaado rectangle halkan ku xidh ilaa halkaasi halkan ilaa halkaasi soo qaado kadib waka good kaasna wakaa waayahay haddaad doonto raaci wixii loo yaqaanay albaabkii intaanad iska tirin okay aye halkan ku dhufo sida u riixa marka waayahay 0.9,0.05 kana sidoo kale wakaasaa u riix 0.7,0.05 guideline-kii 3 point-ga ha soo qaado halkaa ku xidh ilaa iyo halkaas kusii kana kama xidhno marka dibadda kaasa raacayna sorry halkan albaabkii yuusan ku qaldin line-kaas albaabkan albaabka ka yar marka halkaa kasoo qaado halkaa ku xidh kaana ku xidh marka isagana waad banayn kartaa albaabkii kuwana dhammaantood iska tiri kan gudaha isaguna in laga rabo sidii oo kale 20 centi oo laab ayaynu u sameynaynaa waxaynu baxaynaa 1 mitir halka mitir waxaynu soo geynaynaa 5 centi oo shatterkii ah xaggana iyo halkan kale oo shatterkii ah albaabkii loo xigeliyay waanu isku xidhanaa kana waynu isku xidhanaa kana saasaan u baxaya mar walba albaabka waxaa loo furaa halka uu u weyn yahay sababtu waxaa la diidayaa in gudaha waxa jooga la arko albaabka markuu gaaban yahay ama uu gaabsan yahay 0.9, 0.05 okay way maxaynu sameynaa iska tir labadan ku dar soo qaado aadkaagii halkana laga bilaabaa si labada point aad uga dhigata qalooca kaayaka okay waxay noo haray kan kale inoo haray waynu koobiyesan karnaa laakiin koobiga ma rabo maadaama aan hadda bilownahay 0.2 marka
markaan ka durko 1 kilomitir baan soconaya marka hore iska bdaa hadduu ku diido 1 mitir halkaa mitir markaa waxaa ka go-ayo 0.05 halkana okay 0 waan ka boodaya mar walba halkaa mitirkayga hadaad u fiirsato pointigaan ka bilaabaya markaa isagaa ku darsanaya 0 pointigii ila pointigu keligii ma shaqeynayo 0.05 marka aan kuleeyahay macnaheedu pointiga markaan ka bilaabo inaad ila fahantaa okay albaabka markaa halkan uma furmayo dhinacan ugu furmayo marka saasaad oranaysaa waaye hadda waan dambaysiinayaa tirada dheer tirada kale waan horeysiinayaa 0.05, 0.9 okay 0.09 pound marks okay 0.05, 0.9 aye okay meel xidhan weli guideline-kii baa ii waxaysan hadda waan xidhan karaa waxaad ka soo qaadaysaa aagii waxaad ka qaadaysaa ilaa halkan ilaa iyo halka dhammaan guideline-ka waxaad leedahay tir sidoo kale halka albaabka fur waynu furnay maxaa inoo hadhay albaabkiisii waxaa inoo hadhay kan aagii u sameyno iyo maxay kale iyo suuligii public ahaa labadaas ayaa inoo hadhay insha allah suuliga public isagana halkan aan ugu sameynayna okay halkan ilaa halkan waxaad haysataa mitir iyo 30 soo maaha 10 centi wax saas waxaan ka durkaysaa 0.1 isagu waa inuu 8 noqdo markiisa hore 0.8 0.8 kaas waa inay ka go-aan 5 xaggaasa okay 5 xaggaasa iyo 5 xaggan kale waa inuu 0.7 gudaha kusoo ururaa saynu ku ballanay saas ahayd saynu ku ballanay saxda ah ee ballanada lagu sameeyo albaabada suuliyada inta badan iyaga waa la ballaqaa gidaarka ku dhegaan okay waad ku dhejin kartaa anaga qariyo waxbaad oran kartaa labadaba marka waxaa la diidaya halkaa fool dhaqi waxbaa la geystaa inta badan marka korniisa ayaynu ku dhejinaynaa marka halkaas aynu kasoo baxaynaa 0.7 waa inaynu haynaa marka tirada badan hadda waa maxay waa dhererka weyn 0.7, 0.05 okay aagii teg halkaa ku dhufo halkan ku dhufo ilaa iyo halkaa teg kadib iska tir labadan line labadan kalena tir dhammaan baayinkii oo dhammaystiran waa ay daaqadihii uun ka maqan yihiin okay marka waan isla socon doonaa haddii ilaahay idmo maanta halkaas ayaan ku joojinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu